dad baa isweydiinaya oo dhahaya ururka IGAD maxaan ka faa'iidnay iyo muxuu yahay laga yaabo inaan su'aal macna qabtaan laga yaabo tan iyo markii uu dhamaaday dagaalkii qaboobaa dunida waxay u wareegtay waxa la yiraahdo globalization in wadamada koox ay isugu leexdaan si ay isu kaalmeeyaan waxaa jira horumarro waxaa jira u baahan in wadamadu ay si gaar ah ay u noqdaan ood wadaag oo aan wadan kaliya uusan ku filnayn waxaa ka mid ah waxyaabaha abaaraha ka mid ah waxaa ka mid ah arrimahan oo dhaqaalaha in wadamadu si gaar ay u wada macaamilaan qayb weyn ayay ka tahay sidoo kale inta wadamada kale adduunyada waxay la macaamilaan ururada inta la macaamili lahaayeen wadan gaar ah for example wadamada Europe oo kale inta EU-da ayaga 27 dal waaye ayaga si blog ayaa loola macaamilaa ayaguna waxay rabaan sidaas si lamid ah wadamada Afrika kale oo 54 dal ah markay la macaamilayaan inay la macaamilaan 8 urur goboleed ee Afrika ay leedahay IGADna kuwaas ayuu ka mid yahay sidoo kale inta midowga Afrika waxay sameeyeen barnaamij loo yaqaano vision loo yaqaan higsiga 2063 loo yaqaano higsigaasi wuxuu ku saleysan yahay 8 gobol ee Afrika ay ka kooban tahay inay u tahay aas mataqaanaa maxay sida looga wada shaqeyn lahaa horumarka marka IGAD muhiimadaas ayuu leeyahay annaga for example markii ayaan dhaweyd aan isqabanno kale mataqaanaa dalka driskan aan nahay oo IGAD aan ku wada jirno talaabada ugu horeysa aan qaadno waxay ahayd inaan wadamada IGAD kulmino si aan oga helno garab istaag shirkaas oo ka dhacay magaalada Kampala oo ay IGADna ugu garab istaageen oo wadamada ugu horeeyayna garab istaag ay ka mid yihiin marka IGAD muhiimad noocaas ay leedahay dhinaca horumarinta dhinaca amniga dhinaca arrimaha cimilada iyo mataqaanaa iska kaashiga abaaraha iyo maadaama ay wadamadu ay ood wadaag yihiin marka heshiiska cusub wuxuu soo kordhinayaa wuxuu xoojinayaa iskaashigii hore oo amniga wuxuu ku kordhinayaa mid dhaqaale mid integration iyo mid wuxuu ku kordhinayaa cimilad marka heshiiskan waa idiin horyaala waxaa aas u ah IGAD in wadamada ku jira ay yihiin wadamo isku xuquuq ah isla eg isdhowraya mataqaana ixtiraamaya sovereignty-gooda iyo mataqaana wadajirkooda oo aan wadan kale uusan ku xadgudbayn marka waxaan idinka codsanaynaa inaad soo akhrisaan oo akhriska labaad hadduu ilaa yidhaha mataqaana wixii su-aalo aad qabtaan dabcan waa heshiis la saxiixa waaye inta badan waa ratification buu u baahan yahay wax badan aan ka bedeli karna ma jiraan laakiin hadday jiraan qodobo mataqaana loo arko waxaan ka qaadan karnaa waxa loo yaqaan reservation ayaan ka qaadan karnaa laakiin inta badan waa aas waa heshiis la mid ah hadda wadamada Djibouti iyo South Sudan iyo Ethiopia way saxiixeen waxaa dhima waa annaga iyo Kenya iyo Uganda hadda ayayna baarlamaanadooda ayuu hadda hor yaalaa marka waxaan diyaar u nahay de wixii su-aalo xiriira aad qabtaan inaad kaga jawaabno waxaan idinka codsanaynaa mataqaanaa guddiga loo gudbiyo aan filay inuu yahay guddiga arrimaha dibadda in ayaguna ay soo diyaariyaan mataqaanaa akhriska labaad hadduu ilaa yidhaahdo marka waa idin mahad celinaya mar labaad waana mahadsantihiin internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah ku hadal iyo IPTV ula socda receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $30 oo hel internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu yahay 55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisu yahay 110 megabyte per second iyo 700 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah